dagaalkii xalay ka dhacay iyadoo markii inta la afuray dadka banaanka ee fadhiyaan mar waxaa laga wareegay xabado dashiike iyo BKM iyo AKL isugu jiro ciidankan loo yaqaan haram cadda iyo qolo military oo macawisle la yiraahdo isku dhaceen dagaalkan wuxuu ka bilowday nin military oo qora wato ciidankan haram cadda dhaheen qoraga dhig qor uu ku biloway markii aagu u galay kuwa kale waxay meesha dagaalku waa balaartay dagaal hal saac socdo qaatay shan qofood shacabna waa ku dhaawacantay qolada macawisleedana halna ka dhaawacmay boolis soo gurmaday oo haram cad la soo sabtay oo ahaa ciidankii loogu talagalay isgoodka afar qof ay ahaayeen afartii midna waa ka dhaawacmay midna waa ka dhintay labadii kalena meel ay macnaha hadda ku sugayeen lama oga haram cad xagooda waxaa ka dhaawacantay hal wiil sida laga warqabo booliskana halaas uga dhaawacmay oo dhintay inta shacabna shan qofood ku noqotay oo labana ay ku dhaawacantay goobtii dagaalka saddexna ay ku dhaawacantay laamiga xaawataako iyo naseexo muddahaas qaatay oo waaweyn la isku ridaayay dadkii guryahoodii ee qalqal xalay dadaa ka kacay xataa kaawo goday saakiina marka iyadoo bandoona oo jiro dadkina ay inta afureen aysan meel aadi karin guryahooda joogaan waxaa loola kortega dashiike iyo BKM iyo hub aan la isugu aabad yeelin marka waxaan leenahay ilaahay ummadan muslimka meelna cudurka ka haya meelna dowladda marna badda galaysa marna isku dul saaseynayso ilaahay ha ka badbaado waayo manaqan ha sargaal lagu magacaabayaan yuurey waa jiriyaa ciidanka booliska oo joogay isgoodka kaawa guday meesha loo yaqaan saddex kulleyda sargaalkii ciidankaas hogaaminaya waaye xabadihii uu maqlay meeshii macnaha ku baxay asagoo afar askari wato afartii askari midna laga dilay asagana la dhaawacay isbitaal madiina dhaawaciisa yaala